هذا الكن ضمبي السومال لان كهذا الشيء wuxuu ku soo baxay afar dhacdo oo Djibouti ka dhacay oo afar tabac deynteeda halkan taalo madaxda kaga soo jawaabtay sida fudud u tiri waa been iyadoo marka horeba waa been hadal dawladeed aanu hayn haddana ma waxa beena waxaan soo bandhigo iminka wixii xumeynayana inaynu meel isaga soo wada jeedno oo mowqif ka wada qaadanaaba danteenu ku jirtaa labadeena taasaan anaga noo mabdaa waxay ka hadlayeen Djibouti taas horta waxay ahayd wixii ugu weynaa ee public loo soo bandhigay ee ay Djibouti uga hadlayeen waa kuwa iyaga oo kambiiska ka hadlaya xafladaha waaweyn inta la leeg ee hotel kambiiska ka dhacay la isugu keenayo dadka boqolaalka ah ee ay ka khudbadeynayaan nimankaas iyagoo abaabulaya in la kaco oo lagu kaco Somaliland iyo gobolka Awdal colaadda la abaabulay ee imka la leeyahay habasha waqtigan cid ay dani ugu jirtaa ma jirto qodobka koobaad horta sidii jamhuuriyadda Somaliland iyo Ethiopia ay u kala saxeexdeen MAU iyo badda ku saabsanaa dawladda Djibouti ilaa 10 jeer ayay ka hadashay cid ku duulaysa cid wax ka qaadi karta toona ma jirto laakiin markaynu nagu heshiisada la galno xabashidu xabasho cadawaa bay noqonayaan yuhuud oo kala markay iyagu kuwa kale la shaqaysanayaan waa walaalaheenii Ethiopia inta shacabka reer Somaliland waa garanaya naguna waa garanaynaa danaa la isdhaafsanaya arinta labaad ee aad u weynaan hore u dhici jirin waxa kamid ah Djibouti maalintii xornimada 27 Juun xafladii weyneed ee lagu qabtay dabaaldega ee lagu casuumay marti sharafta dawladaha dadkii goobta fadhiyay la soo casuumay waxa kamid ah labada nin ee sheeganaya aanu nidhi waanu ka cabanay dhaqaaqyada inta la ka socda Djibouti inay yiraahdaan ama talaabadaas aanu ka qaadnay ama di jawaab waafiya naga soo siiyaan laakiin inay yiraahdaan waa beentiin rish kuma jirin Ethiopia waxa jira gobolka oo dhan ama dad badan oo abaabulaya colaadihii Ethiopia iyo Soomaalida ka dhaxayn jiray bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah maanta waxaan qoliyayna saxaafadda isugu yeedhay inaan xoogaa warbixinayda ka siiyo hadal maalmahan dhex maray ama dhex marayay dawladda aynu jaarka nahay ee Djibouti iyo jamhuuriyadda Somaliland hadalkaas oo ku saabsanaa jabhad nima yidhi Awdal baanu xoreynaynaa oo Djibouti gudaheeda dhaqdhaqaaqyo badan ka sameeyay hadallana duubay oo media soo geliyay iyagoo xaradda Djibouti ka hadlaya arrintaas oo dawladda jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland uu sheegay inaanay dawladda Djibouti ka filaynin in caasimadeeda jabhad le waxaan xoreynaynaa Awdal inay dhaqdhaqaaqa ka sameeyaan ama ka soo hanjabaan Djiboutina ay ka soo jawaabtay oo ay tiri waa been arrintaas aan doonayaa inaan wixii cadeymo halkan soo dhigo qodobka koobaad horta sidii jamhuuriyadda Somaliland iyo Ethiopia ay u kala saxeexdeen MAU iyo badda ku saabsanaa dawladda Djibouti ilaa 10 jeer ayay ka hadashay waxa ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxa ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti waxa ka hadlay wasiirka warfaafinta Djibouti waxa isagu malaha 5 jeer ka hadlay wasiirka maaliyadda oo isagu shaqaba ka dhigtay MAU-ga iyo Somaliland oo mar walba ka hadla inta hore ay ka hadlayeen mar qura jamhuuriyadda Somaliland uma jawaabin siyaabo kala duwan way uga hadleen oo runtii ay ahayd inaanay sidaa isugu hawlin dawladda Djibouti
mar walba walaalnimo iyo wanaag iyo wada dhalashona waa ka hadlayeen arrintana si gaar ah bay uga hadlayeen waxa waliba ay si gaar ah u dhibaysay oo shaqo ka dhigtay wasiirka maaliyadda ee Djibouti oo aan filayo inaanu waxyaabo gaar ah oo isaga u gaar ah oo ka dhex qodayo ka dhex baadhay annagu Jamhuuriyadda Somaliland arrimaha Djibouti uga ma jawaabin waxaan u arkaynaa waxa anaga Ethiopia naga dhaxeeya oo badayada iyo dhulkayagaanu dhowr iyo 3 sano ka hor aan u tashanay aanu daal ka dhigayo wax anaga noo taala ay tahay sida awadeed hadalkan dambe ee Somaliland ka hadashay wuxuu ku soo baxay 4 dhacdo oo Djibouti ka dhacay oo 4 taba cadeynteeda halkan taala nimanka yiraahdo awdal baan xoreynaa jabad baanu nahay oo awdal state movement isku sheegay markii Djibouti ka hadlayeen waxa ay sheegeen inay awdal ka xoreynayaan daaqud waxay sheegeen inay dadka abaabulayaan waxay sheegeen in umadu kacdo reer awdal waxay ka hadlayeen Djibouti taas horta waxay ahayd wixii ugu weynaa ee public loo soo bandhigay ee ay Djibouti uga hadlayeen waa kuwa iyagoo kambiiski ka hadlaya muuqaaladoodii iyagoo fiidiyowa iyagoo qoraalaba waa kuwaas iyagoo fiidiyowna waanu idiin qaybinanaa ummadoo dhammina way daawatay nimankaasu dagaal bay ku baaqayeen Djiboutina way ka hadlayeen hadalka waxay ku dareen in Djibouti lagu soo dhaweeyey waana u mahadnaqeen hodheelka kambiiskina way ka hadlayeen arrinta labaad ee aad u weynaan hore u dhici jirin waxaa ka mid ah Djibouti maalintii xornimada 27 Juun xafladii weyneed ee lagu qabtay dabaaldega ee lagu casuumay marti sharafta dawladaha dadkii goobta fadhiyay la soo casuumay waxa kamid ah labada nin ee sheeganaya Awdal State waxay fadhiyaan fagaarihii weynaa ee dabaaldegu ka socday halkii martida loogu talagalay la soo casuumo halkaana waa ognahay qof la soo casuumo mooyaane qof kale iska soo gali karin wayna ognahay waa kuwa safka halka madaxweynuhu fadhiyo xaqiisa dambe fadhiya dhacdooyinka kale dhacay waxa kamid ah runtii aan hore u dhici jirin ee Djibouti ka dhacay xafladaha waaweyn inta la leeg ee hotel Kambiis ka dhacay la isugu keenayo dadka boqolaalka ah ee ay ka khudbadeynayaan nimankaas iyagoo abaabulaya in la kaco oo lagu kaco Somaliland iyo gobolka Awdal khudbadahoodii oo dhan waan haynaa waxa intaa weheliya iyagoo suuqa maraya oo baambo iyo muusig laga daba tumayo oo dad labisan oo habaysan ay daba socdaan oo suuqa Djibouti ay dhex maraya dhacdooyinka intaa la leeg ee hadallada hanjabaada iyo xafladaha waaweyn ee hoteelada lagu qabanayo iyo shir jaraa'idada iyo 27 Juun maalinta xorriyadda ay xafladda ka soo qayb galayaan lagu soo marti qaaday ma aanu nidhi Djibouti arrintaas de kama aanan filaynin madaxda kaga soo jawaabtay sida fudud u tiri waa been iyadoo marka horeba waa been hadal dawladeed aanu hayn haddana ma waxa beena waxaan soo bandhigo ummadda reer Somaliland 60 milyan way daawatay ummadda Soomaaliyeed oo dhamina way daawatay ummadda reer Djiboutina way daawatay marka runtii taalafteeda de wax inaga dhaxeeyay Djibouti ma ahayn waxay ahayd sidii heshiis hore jiray nabadgelyada xuduudaha la wada ilaalin jiray dambiilayaasha la isu celin jiray saxarka iyo sanqadha laga dhowri jiray wixii nabadgelyada xuduudaha wax yeelay waxyaabaha talaabooyinka inta la leeg Djibouti waxaanu naqaanaa oo aynu ognahay inay tahay dal aan ciidan dawladdu ogeynina aan iska soo gali karin ciidan dawladdu ogeynina aan xaflada inta la leeg iska qabsan karin taas cid waliba ogtahay shacabka reer Djiboutina waa ogyahay ummadda reer Somaliland waa ogtahay marka naguma filla runtii waxa la loo qoorana ma ahayn la yiraahdo war walaalaynu nahay waxbaynu wada leenahay wax kasto bini aadam ka dhaxeeya way naga dhaxeeyaan xuduudana wada ilaashan jirnay nabadgelyada iyo nolosha
يددكم ويسكيكن حدين وأرنت هذا بانو كقبنايك إذا كمان ننفلين إنه نجا صورة هذا ندخل إن أصيف وضع سكتر هذا وابين يدا واحد صعد دايما هي تيران تالف تدري كمان ننفلين مركا واحد نقول لهين هذا الكي رنتي هذا لو نقطة و دي waxa inaga dhaxeeyay waxaynu isu qoori karnay waxaynu isaga qalanaba hadalkeenu ha ahaado nabadgelyada iyo wada ilaashada gobolka ka badda iyo ka bariga labadeena badan baynu ku jirtaa waana ku soo baraarnay ku soo caanamaalay iminka wixii xumeynayana inaynu meel isaga soo wada jeedno oo mowqif ka wada qaadanaaba danteenu ku jirtaa labadeena taasaan anaga noo mabdaa oo noo mowqifa intaa weey jamhuuriyadda Somaliland sidii horeba in badan loo sheegay iyada dibadaheeda iyo dhulkeedaba ka mas'uula dawladda Djibouti-na in badan xiriidho iyo wanaag badan bay naga dhaxeeyay waxaan xasuustaa markii DP World Somaliland heshiiska la gelaysay waxaanu ka qayb galnay inaugurationkii 2016 anigoo wasiira oo madaxweyne Siilaanyo wafdi hogaaminaya la socda dawladda Djibouti talooyin bay nasiinaysay ay leedahay iska hubsada si walaaltinimo bay noola talinaysay annaguna waxaan u arkaynay inaanu danteedii iyo shaqaysano aan cid dib ku ahayn heshiiskaas wuxuu keenay DP World beriga galay inay dekada berberi noqoto wadamada saxaraha ka hooseeya dekada ugu horeysa sida uu soo saaray World Bank ee la wada socoteen World Bank hay'adeen xukuumad ma hay'ad Afrikaan xukuumad ma adduunyada dhan baa xukunta waa hay'adaha dalka adduunyada ugu sareeya dhaqaalaha iyo bangiga adduunka maamula category-ga iyo liiska sidoo kale horeysiinayna wax standard ah la yaqaano oo aan cid ku murmi karin wixii saxaraha Afrika ka hooseeya dekadeena ugu horeysay oo top oo hay'ado number 1 ahay waxa saxaraha dalka ka hooseeyana waxa weeye intan waqooyiga Afrika ee Carabta wixii aan ahayn wixii Masar ka bilaabmay ilaa Morocco ku jooga markaad soo dhaafto ee saxaraha kubra la yiraahdo dhaafto wixii kale oo dhan weeye waa Afrika ba inteedii badnay dekedeena halkaasay maraysaa waana dadaaladaynu sameynay waxaan ku soo gabagabeynayaa waxa weeyaan dawladda Djibouti ay walaalaha nahay taariikhda wada dhalashada iyo walaalnimada lagu celcelinayo waa naga go'an tahay weligeena xumaan xagga kaba tagin iyagana ka filmayno shacabka reer Djibouti saasaan u naqaanaa waxaan u naqaanaa dad aanan nolol iyo mustaqbal iyo amni iyo dhaqaale iyo dhalashadooda ku kala maarmi kar laakiin waxaanu Djibouti ka sugaynaa ama aanu ka sugaynay marka aanu nidhi waanu ka cabanay dhaqaaqyada inta la ka socda Djibouti inay yiraahdaan ama talaabadaas aanu ka qaadnay ama di jawaab waafiya naga soo siiyaan laakiin inay yiraahdaan waa beentiin meesha kuma jirin taasna intaasan ka oran lahaa qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan Ethiopia waxaa jira gobolka oo dhan ama dad badan oo abaabulaya colaadihii Ethiopia iyo Soomaalida ka dhaxayn jiray runtii cidna dan iguma jirto in maanta oo qarnigii 12aad 2024 lagu jiro colaad Ethiopia iyo Amharo la yiraahdo waxay macna sameynaysaa waxay soo kordhinaysaa toona ma jirto annagu jamhuuriyadda Somaliland markaan nahay dalka xuduudda ugu dheer aanu la leenahay waa Ethiopia maca Soomaalida xadkeeda ka Ethiopia aanu la leenahay ka dheer 33 sanadoodna ciidan shisheeyana ma iman nabadgelyo darna kama dhicin dawladda Somaliland ciidamada amniga ayaa xaslatay oo ku filay dhinaceeda Djibouti-na la mid baa sida awoodeed ganacsiga isdhexgalka bay'ad mushtariga wax walba waa iska kan xidhay cid ku duulaysa cid wax ka qaadi kartaa toona ma jirto markay noqoto heshiisna international law-gana waa naqaanaa sida wax kontraagyada loo galay wax loo kala saxiixdana waa naqaanaa annaga cidina khiyaameyn mayso badayada cid ugu mayso kuwiina ilaashadayaan la idin khiyaameyn
iminkaba dowlado badan iyo qurmo badan baa dhulkiina joogay taana runtii intaasaan ka odhan lahaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.